waxaan u mahad celinayaa marka la shir gudoonka runtii sida habsamida lah ee ay la shalayto u hogaaminayeen kulankeenan runtii qiimaha lahaa ee sida habsamida u socday waxaan sidoo kale iyagana hambalyeynaya senatarada dooda ka qayb qaadanayay sida hufan oo aan aaminsanahay hadaynu waxa aynu ka doodayno sidoo yahay hadaynu sii deynay iyo hadaynan sii deynba runtii ina muujiseen si ka duwan sidii golaha shacabka in dad meel siyaasad lagu karinayo oo la doonayo in wax laga bedelo ina joogtaan oo dood effective oo saameyn leh runtii ina soo bandhigteen anigu shalayto waxaan ahaa dadkii soo jeediyay in dib leenoogu dhigo labadii duhurnimo markay ahayd baa la yiri ajendaha isagoo ku jira qodobkani xasaasina ah cod ha loo qaado anigu dadkii aad uga soo horjeestay baan ahaa waxaan filayaa xildhibaanada intii aragtida duwaneed inay dareemayaan faa'iidada ku jirtay arintaas saacadaas oo dhawr bay ahayd dooda fiican ee hufan lama heleen senataradu maanta waqti fiican bay heleen si fiican oo looga dooday waxaan aaminsanahay waxaynu meesha u fadhnaana waxa weeye waa isqancin wanaag baynu doonaynaa waxaan doonaynaa inaynu halkan hadii talooyin iyo waxyaabo dalka wanaagsan ka soo bixi waayaan ogaada waxaynu failed state ka u nahay waxa weeye dadkii la doonayay dalkan inay hogaamiyaan iyo Soomaalidii dalkan lahayd sidii la doonayay inay u fikiraan ee dalkan uga shaqeeyaan uga ma shaqeyso hadaynu talo wanaagsan leenahay xamar bay ka muuqan lahayd cidna inaan eedaynin waa hubaal way markaas waxa sidaa inaga dhigay dadku adduunyada oo dhan tartan baa ka dhaxeeyo cadow baa la isoo wadayahay laakiin cid waliba talooyinkeeda iyo go'aanadeeda ku meel martaa Soomaaliya iyo Soomaaliya cidna eersan mayso tuula haday nabad tahay dadka jooga nabad ka dhigay taana waa inay niyad galisaan haday magaalo caasimadii nabad tahay dad kale ee jooga nabad ka dhigay Soomaaliya qaybaha ammaanka ah ee imika sida fiican loogu nool yahay dadka jooga ee degan odayaasheeda iyo madax dhaqankeeda iyo siyaasigeeda ayaa ammaan ka dhigay taana waa inaan ammaan ka gelinaa 1991 burburkii Soomaaliya wixii ka dambeeyay dadku dee waa kii xaafadihiisa kala cararay nin waliba magaaladiisa yareedii tuuladiisa buu dhistay xitaa guurkii baa lagu kala tago nin waliba inta ilmadeerka ahayn buu guursaday markii Soomaalidu kala yardhowday sidaa markay tahay waxa weeye xaqiiqadan idin sheegayaa in hadalka lagama gabadee tayada hadii Soomaali isku duubnayd oo aan la kala garan jirin tayada tuulo kasta cidii lahayd way muuqato anigu haddaan reer Soomaaliland ahay waxaan aaminsanahay dad genius oo aqal badan ka soo jeedo runtaan idin sheegay anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliland baan ka muuqata arintaas waxaan aaminsanahay halkan hadii la dhageysto inay wax ka bedeli karaan aaminsanahay hadaa laakiin masxarad iyo marka qof hadal yiraahdo inta kacdaan Soomaaliya ay toosoo qaadaan oo aan hadalka la weelaynin anigu waxaan aaminsanahay saasay ahaanaysaa weligeedii Allaheed xaqadan dii sheegay fikirkaygaan hadlaya caafimaadka qaba arintayna hortaala hadalku intaanu iga lumin waxaan idin cadeynayaa anigu taageersanahay in arinta la bariyo waqti la siiyo xeer la ikhtiraacay halku mari jiray iyo wadadu lahaa sharciyan in la mariyo akhrintii koobaad ay noqoto waynu ka doodnay sida jurilay iyo senatar badan oo kale way arago iga horeeyay oo runtii hadalka nuxurkiisa dhameeyay yiraahdeen la eego angalis fara badan laga eego oo waxa saameyn u yeelan karo codkeena iyo gacantaageena la eego mid baynu isku raacsanahay sharafta ummadda Soomaaliyeed inaynu ilaalinaa way naga go'antay waana waxaynu dhaaranay halkaas taananu taaganay anigu waxa laakiin qorshaha ku darsanaysaan dadka sharaftooda la ilaalinayo reer Hargeysa reer Barbarno ku jiraan iyo reer Boorame iyo reer Laascaanood anigu kuwaasan meesha u jooga waan ogolahay midnimada Soomaaliya waan halkan aan u taaganahay Soomaaliland baan ka yimid hadii aad aniga oo halkan kula joogo oo federaalka u joogo halkan aad qancin kara weydo ninka hardlinerka Hargeysa joogay Soomaaliland goosashadeedu waa muqaddas taagan miyaad qancin kartaa ninka xamar joogo ma qancin kartid weey xaqadaan isu sheegno aniga qanci horta aynu isla garanaa anigu waxaynu ku tagno oo aynu Berbere iyo Hargeysa kaga arimino aynu isla garano Soomaaliland sideedii la tasnay jirtay ciidan bay leedahay lacag gooni ay samaysteen baarlamaan ay doorteen bay leeyihiin golayaal degaan oo city councils bay leeyihiin ay doorteen baarlamaan iyo guurti bay leeyihiin madaxweyne ay doorteen oo 300 qof u codeysay ayaa Soomaaliland maanta hogaaminaya
haddaynaan lahayn oo inaan halkan la imanin caqligii dadkaas intaa jiray oo waxyaabihii shuruudihii state lagu garan jiray oo dham ictiraaf ma haystaan ay u dhayin caqligaynu kula dhiil garayn layn ee aynu qarankii Soomaaliyeed dib ugu doon layn haddaynaan halkan ku haynin dariiqaynu midnimadii Soomaaliya u marayno anigu idinkaan weydiinay haddii la yiraahdo taa idinkaan ayaan idinka sugay inay keentaan dariiqa haddii laakiin aynu wada tashi leenahay markano annaga inteeda halkan idin la joogtay sida fiican u fikirayna aanu ku qanacno road mapkii xamar anagu sanad iyo 3 bilood baan imka jooga laba sanad iyo inta imka aynu wada joognay aqalka sare jiraan siyaasadda Soomaaliya jooga fikradan qabay runtii wax badan baa aniga iska bedelay Soomaali weynimada iyo in midnimadu mar walba ay ka wanaagsan tahay in la tafaraaruqo ummadda islaamku guud ahaan ay ku wanaagsan tahay wada socodka gaar ahaan Soomaaliduna ay ku wanaagsan tahay 12 milyan baa lagu qiyaasaa gabadh reeriga aan dhaho taajirada ayaan idin maxaad Hargeysa oo dhalashahan reer Qoya ayaan maxaad Hargeysa dukaan uga furowday anigoo Kambaale jooga waxay tiri dukaanka ugu weyn Hargeysa maxaad marinaysaa maalintii wax ka iibsadaan bay ku tiri dabadi baan isro faan baan isreena waa caasimadii aan ka yimid waxaan ilaa 500 qof deena kumaad baan halkan ku leeyahay waxay tiri maalintii 20,000 qof wax ka iibsada bay tiri anigu ganacsi baan u socdaa anigu ma reer jacayl bay hayay bay tiri waxaan ka fikirayaa inay Soomaalinimada oo haddii lagu heshiyo oo ay sida ay tahay loo qaato inay ka wanaagsan tahay in gobol loo go anigu sidaasaan aaminsanay laakiin aynu isla garanno dariiqa loo maraya ama dariiqa shaarka leeg loo tolay marka la yiraahdo berbera ay DBO wax ka samaysay sharciga habeen lagu sameeyay aroortiina la ansixiyay mashaar leeg baa loo tolay DBO iyo reer Somaliland mise wax dalkan dhaqa oo boqolka sano ee soo socda la eegay la faguray oo la eegay saameynta dhaqaale sidii xildhibaanadu sheegeen oo la eegay saameynta siyaasadeed ayaa lagu saleeyay boqolkiiba boqolna waa ka soo horjeeda anigoo qarannimada Soomaaliyeed aaminsan baan ka soo horjeedaa inaanu kaasi waxaas ummadda Soomaaliyeed dhaqayn maanka aynu ku hayno in proxy war ka jiro Soomaaliya quwada shisheeya Soomaaliya ku dhex dagaalamaya haddaynaan maskaxdeenu aanay capacity gaar ahaynana waxaas oo dhan aanay ku urursanayn de waxaynu meesha u joognaa waa iska khiyaali Soomaaliya waxa ku dhex dagaalamaya dagaalka khaliijka ee carabtu iskaga soo horjeeda xamar gudaheeda iyo Soomaaliya ka socda dagaalka Suuriya ka socda ee Ruushka iyo Mareykanku iskaga soo horjeedaan halkan uu ka socdaayo de Sacuudiga iyo Turkiga Sacuudiga iyo haday xulafay yihiin Imaaraadka iyo haday xulafay yihiin Iran iyo dad kale oo aan weligeed waddankeena imanana dad kale ila xulafayino halka waxa ka dhacaya maanta cid waliba saasay ay ugu haysataa binikuleeda ugu haysaa iyo ciyaarigeedan la noqonin haddaynu karno aynu leenahay awoodda inaynu faragelinta Soomaaliya lagu hayo talaabo ka qaadna adag oo sidii Crimea Ruushku markay yiraahdeen waanu gonay oo xaggaasuun marka qura dagaalka ka mariyay dadana uu 10 madfac ku dhuftay lagu aamusay haddaynu sidaas samayn karayno aynu xadka Djibouti intaynu badda marro xagga kaga nimaadno DBO iyo wixii afka taagaba aynu madaxa ka jabino haddayna awoodda leenahay weeye haddii laakiin xitaa waxaynu ansixinaa inuu cadha abuuro mooyaane aanu waxba tarayn oo xamarayna ka bixi karayna nafkooda ka tagi karayn hadalkeena maxaynaanu miisaameyn sideynaan hadalkayna ka soo baxaya halku ku dhacaya hadalku meel dheer buu ku dhacaa baa la yidhi sideynaan hadalka u miisaameyn aniga priority-ga koobaad waxa weeye halkaa ay saaran road mapka Somaliland iyo Soomaaliya ku wada hadlayaan inaan la dhaawacin weeyaan diyaar imika waxa ahaa in Somaliland iyo Soomaaliya wada hadlaan waan sugi kara la anigu arinta niyad jab ka weyn inta xamar joogay gumu dhicin go'aanka golaha shacabka maalintii ay durdirada ku ansixiyeen dumarkii madaxweynaha ka hor mashxarada ee laha baarlamaanka lagu dhex qeeray ee deetana gacanta loo taagay mina subaxdii 10kiiba naga hor yimaadeen iyagoo soo dareeray siday dad qof soo aaseen waxaan idin sheegayaa anigu baarlamaan xildhibaanada sharafta leh inaynu si fiican u fikirro ka baaraan degno waxaynu sameynayno saameynta uu heshiiskaasi yeelanaya aynu ka fikirro Imaaraadka Carabta xamar bay safaaradda labaad bay ku leeyihiin ugu weyn safaaradda Turkiga marka laga reebo waa safaaradda labaad ee ugu weyn bay xamar ku leeyihiin Imaaraadku ciidan bay gacanta ku hayaan xamar degan oo xoog u tababaran oo waxay doonaan sameeya oo shalay aynu halka kaga hadlayno senatarada qaar lagu dhibaateeyay bay Imaaraadka gacanta ku hayaan Ethiopia heshiiska qayb ka too xadka ugu dheer Soomaaliya iyada la leh ciidankeeduna Soomaaliya jooga amisumna wuu ku jiraa iyadoon amisum ku jirina ciidankeedu xuduudda Soomaaliya dheer halkay doonaan inta ka soo galaan oo ay shabaab kula dagaalamaan oo cid ay doonaan ay kale ku rabshaan ayay iska noqdaan
xamara gagaarkeeda dagaal ka dhaca ay al-shabaab iyo qurumo kale inaan garanaynin isku laayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu gariir kun maqlaan hubka la isku ridayo Soomaaliya ma fargelin baa u dhiman waxaynu khiyaaliga isugu sheekaynayna qofka ima kale Soomaaliya la soo fargeliyay war Soomaaliya waxa ka socda xamara gagaarkeeda inaan xitaa inagu war haynin waxaana taa keenay waxa weeyaan the failed state baynu report kasta adduunka ka soo baxa ku qoranay oo inuu page-ka koowaad ka qoranay kana baxsan mayno ilaa aynu la nimaadno commitment inaynu waxaynu leenahay Soomaalida ku dhaqno oo aynu waxaynu leenahay dalka ku xukunno fikradaha imika la isku haysta ee xitaa codka imika la qaaday riixayana waxa weeye proxy warkan sheegayo fikradaha shisheeye nagu jira annaga xitaa hana la yiraahdo dil doono dalalka carabta ee isku haysta siyaasadda Soomaaliya ayuu qaar taageeraya qadar iyo way iskaga soo horjeedaan imaaraadka dalkeena labaduba faragelin aan qarsoonayn bay dalkeena ku leeyihiin Ethiopia faragelin ku leh Turkiga faragelin ku leh oo shirkadaha imika ka wada dhawaajiseen ee airport-ka iyo haysta anigu guddiga khayraadka ku jira oversight-ka waxaan ku leeyahay dekada iyo tuulista hawadaba inaan kormeero oo la xisaabtamaan leeyahay wasiirka iyo maariyaha dekada iyo ka tuulistaba aqalka saraan ugu yeerno halkaas aan ku wareysanay mid waliba wuxuu yiri oo taas hadda tagaysaan idinku taga idinku orda u taga beeradeen idinku caasimadii baa joogtaa ninkii yiri wuxuu yiri socon weyne wuxuu yiri aan cararo anigu saas ma arkaa xigmad baan xusuusanahay nin reer Soomaaliland oo reer Saylac bari wuxuu yiri dawladii cigaal baa Allah naxariistay Soomaaliland mucaarad markaa ku ahaa wuxuu yiri sheeku keer shaqeeyay isagoo baarlamaanka ka hadlay wuxuu yiri hadiya jeer dadka reer qoyga suugaan bay ku cabiraan hadiya jeer fikradahooda oo dad gabayga iyo heesaha iyo waxa aad runtii ugu fiican wuxuu yiri nin baa wuxuu yiri Oromaa ayuu nin hal wata ku soo hal foolanaysa ayuu nin eriyay nin Oromaa u soo hoyday buu yiri fiid hashiibo halkan beer halkan galiyay buu ninkii uu dee cunto iyo biyo soo doontay intii wixii cunayay buu ninkii ku yiri waa bal hash way foolanaysay beerta baan galiyay in hashi dhashay soo eeg buu ninkii Oromada haana weligii hal dhalaysa ma arag loo buu lahaa iyo beer yar hashiibo dul tago wuxuu tagay hashiyo ilma ka soo jeedo sida caadiga normally waxa dhalanaya wax la soo dhacaa qaarka hore wuxuu tagay hashiyo cagaha dambe neeftaba keena oo cagaha dambe ka soo jeedaan inta dambe la soo dhacday in neefki yara manoo arag weligii laakiin waa dhif bay dhacdaa in neeftaba keena xoolo dhalaan oo daba keen buu arkay hashi ka soo jeeda ninkiiba ku soo noqday ninkii baa hashi ma dhasho wuxuu yiri waxay dhashay iska daayay qaar nool baa sii galiyay wallahi qaar nool imma kay qaar nool sii galiyay buu anigu waxaan ka baqanayaa sidaynu u shaqeynayno fikirayno inaynu Soomaali isu keenay iska daayo inay imma ka qaar goostaan oo Jubbaland iyo ku dhawaaqaan waanu qoray anu saasan ka baqanayaa oo idinku dheereeyay runtii hadalka aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa anigu waxaan principally in ummadda Soomaaliyeed sharafteeda meel laga dhaco anigu waxaan say cid ka baadriyootin ma jirto oo ka wadanisan in sharafta ummadda Soomaaliyeed meel laga dhaco anigu marnaba ma ogoli dhulka Soomaalidana in dadka loo cadaawi qaataan marnaba ma ogoli xildhibaanada sheegay oo Somaliland dadka joogaaba isku mar raacsana heshiiska DP World isku mar raacsana in badan baa ka soo jeedo le sidee xabashada waddankayaga Ethiopia wax looga siiyaa sidee bay saamiga ugu badan shirkadda DP World u qaadataa argumentkaasi markuu halka ka jiro kamayna fikirin qaabkii siyaasadeed ee dadkaana ayna taageeradooda u lumin lahayn dadka Somaliland ayna waxba ku yeeli lahayn heshiiskana ayna balino sii socon karo iyo qiimeyn rasmi runtii mayna sameeyeen marka waa ka baxay runtii waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan la mowqifay oo soo jeedinayaa gudoomiye in la mariyo processkii ay mari jireen xeerarka la soonka ay mari jireen waliba kan uu ka sii xasaasisan yahay waxaan ku sii daray anigu in loo yiro iyo dad sharci yaqaanaana lala kaashado gudida u xil saaran iyo cidii lagu xoojinayo loo diro waqtina la siiyo. Assalaamu calaykum.